بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Abduqani Axmed. maanta waxaan eegi doonaa isticmaalka Windows 10 sidoo kale kan wuxuu ka anfacayaa inaad isticmaali karto operating system kale oo fahmi karto waxyaabaha main functions ay qabtaan iyo hawlaha ugu badan ee operating system ku qabto. waxaan ka bilaabaynaa shaashadan hore ee desktop loo yaqaano. desktop ka badanaa wuxuu soo dhigaa applications ka aad ku install garayso buu shortcut ay kor soo dhigaa. sidoo kale adiga folder aad u baahan tahay inaad degdeg u isticmaasho kale ku kaydsan kara right click markaad taabatid newga tiraadid folder baad ka samaysan kartaa xogta ku urusatid badanaa xogta laguma kaydsado desktop-ka meel kale oo muhiim ah xogtada muhiimka desktop-ka badanaa waxa uu kaydsadaa xogta inaad hore u gaadhaad rabtid waxyaabaha aad markaas isticmaalayso kale waa kan waad isticmaali kartaa applications-ka oo ku soo dari kartaa markaas isticmaashid sidoo kale applications-kan waad dhaqaajin kartaa meelaad in kartaa waad habeyn kartaa waxaad habeynaysaa soortada tiraadid by name waka uu habeeyay saabu habeeyay application-ka markaa u baahan tahay tusaale ka bixin soo kala kuma soo dhigin kartaa saaban ku jeclay kale waxaad oran kartaa inaad auto arrange tiraadid oo kanadaan xaga soo dhigo automatically halkiisu ugu celinaya isaga auto arrange ku sameynaya wax kan soo qaadi laakiin option kan iska xidhay auto arrange-ga inaan ku qaadan karaan rabaa oo kan tusaale ka bixinay halka go'do yaalo soo uga muuqan karo. sidoo kale hadaan xagan hoos u gudubno kuwan intaan xaga ka gudbin kuwan wax samayn kartaa application hadaad rabtid inaad ku soo dartid desktop-ka application laftigiisa baad raadinaysaa. sidoo kale excel ma rabnaa uu inoo yaalo excel-ka markaan soo qornay searching garayno right click baan siinaa file location marorayna file location markaan dhaano markuu inoo soo baxo icon-kii waa kaas right click baan siinaa send it to desktop icon waa ka application-kii halka uu inoo soo dhigay hada kadib application-ka inaan xagan ka raadino waan excel ku qorno u baahanayni kan baan furaynaa excel-kii oo caadi inoo furmaya saas baa applications-ka loogu soo daraa. sidoo kale xagan hadaan ka bilowne qaybtan waa searching-ka markaad wax ka raadinaysid halkaad wax ku baaraysid way qaybtan waxa la yiraahdaa halkan labaad ee ku xigta task view-ga la yiraahdaa markaad ku fatid waxyaabaha ku furan ayuu ku sheegayaa iyo desktop kala duwan waad samaysan kartaa midkaad ku shaqeynaysid desktop labaad inaad xagan ka samaysan kartid oo diyadna ku qabanaysid midkii shaqada midka casharka ku diyaarsanaysid aad ka samaysan karto. sidoo kale applications-kani qaarkood waa kuwa ku furan oo markaad xidid way ka baxayaan meesha qaarna waa meesha aad pinki aad ku tiro markaas inay ku taagnaadaan si aad hore ugu furan kartid sidii kuwan oo kale ayaad samaysan kartaa. kuwa hoosta calaamad yar kule calaamada yar hoosta kule ee kaas iyo kaas waa applications-ka furan weey kuwan kalena ma furna laakiin oo soo dhigatay meesha task bar baa la yiraahdaa intan waa qaybta lagu shaqeeyo marka applications-ka ku soo dhigayaan kuwan oo kale xagan waa soo dhigi kartaa waxaan leeyahay pinki task bar baad oranaysaa right click ka tiisid application-kaas halka uu ku soo dhigayaa markaad inaad ka saartid rabtid application-ka halka yaalana am pinki baad oranaysaa uu ka baxaya. marka halkan waxaad ku diyaarsanaysaa applications-ka markaas aad isticmaashid markaas inaad furto u baahan tahay soo kuwan oo kale kuwa ka siyar kooban kuwan oo kale kuwa badan baad soo dhigin kartaa ilaa imka intaas application-ada ugu jira badankooda oo dhan desktop icon bay leeyihiin xagan baan ka sii furi karaa kuwa ka siyar kooban markaas aan isticmaalo deelga isticmaalo email-ka kale inaan file iyo folders furo google-kiina raadiyo sidoo kale spaces-ka xagan yaala application master qaybtan kale dhinacan right-ka hadaan u gudubno dhinaca midig isna stars bar baa la yiraahdaa waxaad ka arkaysaa wifi-ga ku xiriirsanaa in wifi ku jiro iyo in wifi ku jirin dabka halku ku marayo. halkan waa qayb kale ku sii qarsoon oo koon waad soo qaadi kartaa halkan banaanka soo dhigin kartaa ku banaanka yaalana halkan yar waad ku dhex qarin kartaa oo isha yar baa ku furmaysa marka application-adu bataan waxa kaasna la dhex dhigtaa. sidoo kale dabka kale mar walba u baahannahay halkan kii dabka inoo soo dhig qaybtan ku xigta waa markaad isticmaalaysid waxa soo dhigaa markaad ku aad ogolaatid inaad
hal luqad wax ka badan inaad wax ku qortid imika laatiinka oo ingiriiska iyo soomaaliga waxaas isku siba qormaan iyo carabiga way furan markaan anigu doonayo inaan carabi qoro xaggan waan iskaga bedelayaa ingiriis baan dooran ingiriis buu qorayaa carabi baan dooran carabi buu qorayaa carabigii buu qorayaa soo kale waxaad isticmaali kartaa halkan adoona tagin windowga iyo space hadaa taabtid isaga automatic isku ka bedelo mid ku tagnaamayna midka kale u tagaya xagan saacadii wixii baad ka arkaysaa xaga notification baraba la yiraahdaa notificationadii baxan kuu sheegaya emailladii iyo waxyaabii kuu soo dhaca ayaad xagan ka arkaysaa applicationada notification kuu soo diro ayaad arkaysaa ama application baa ka dhacay application kaaba waxa lagu soo kordhiyay buu ku leeyahay ayaad ka arkaysaa sidoo kale xagan waad ka arkartaa shaqooyin kooban inaad connection isku xidhiidhid projectorkii inaad aragtid battery saverkii hotspotkii lightnitkii waxyaabaha applications u baahan tahay inaad flight airplane gelisid flight mode bay ahayd airplane applicationada qaar waxay qoraan sidoo kale halka yare ka dambaysa hadaa taabatid desktopkii uu ku geenayaa waad ka soo noqon kartaa sidoo kale markaad doonaysid inaad desktopka tagtid ee dhowr application ku furan yihiin tusaale kale applicationka kan qaadaniga kan soo laabo desktopkii ma geeyay wali mid kale isjooga kan soo laabo mid kale is jooga si aan hal mar desktop ku tagi karo inaan wax ka eego u baahanahay windowga anoo hayo u mandina taabanaya bis go desktop ayuu kaana yahay sidoo kale halkan dhinaca bidixda wax ku yaala star button-ku waa halka applications-ka iyo waxyaabaha dhan aad kala socon lahayd aad ka arki lahayd computer-ka dhan oo alphabetic way habaysan yihiin halka yar wax ku soo dhigaya application-adii ugu dambeeyay isticmaashay inta wixii ka dambeeyana waa alphabetic way habaysan yihiin haddaan eeda ku dul dhufto kale wixii geenaya letters-ka geenaya xarafkan rabo waxaan u baahanahay kale tii haddaan rabo wixii geenaya applications-ka tiida logo creation tips intaas application oo tii ka bilaabma jira waa kuwan ku horseedana way sii daba taxmeen okay xaqana waa qaybtan kale star button-ku waxay leedahay power key inta ka damin kartid iyo documentation-kii oo setting-kii way yadna leedahay application-kan xaqana waa kuwa yar fudud oo inaad halkan alphabet ka raadin lahayd ayaad halkan ku sii arkaysan kartaa waa step yar oo yadna waa fudaydinuna oo kan oo kale wax ku soo darsan kartaa access kaas oo kale ku soo darsan kartaa intii start waladay halka start ka soo muuqanaya oo markaad start taabatidba start halka ma ku taaban kartaa calaamadan windowgana waa taaban kartaa startiga akasna halka uu ka soo muuqanaya kan xataa waad ka saari kartaa halka aad doonaynin unpin from start-yadan iga saarinuna isu soo gelin applications-ka CSS oo weydiin siin kartaa oo resource badan kartaa medium large soo dhigo mid ka sii weyn soo dhigo large application-ka tool ay kaanay icon kale ka soo muuqanayo waad xadidi kartaa waan bedeli kartaa sidoo kale applications-ka markaad right click siisid inaad start ku soo dari kartid inaad more oran kartid oo task bar inaad ku soo dartid xaqan ku soo dartid ku ogolaanayo iyo sidoo kale inaad application-kan ka wasaari kartidba faylkii ugu dambeeyay application-ka la xiriiray ee furtana uu ku soo dhigaya recently file uu ku soo dhigaya haddaan ka sii socono oo setting-ka tagno setting-ku waa laba qaybood waa setting-ka kooban home-ka ku noqono waa setting-ka kooban information-ka ku soo dhigaya iyo setting-ka weyn information-nada loo yaqaano control panel baa la yiraahdaa waan arki doonaa control panel-ka iyo waxyaabaha ay qabato waa setting-kan oo la sii balaariyo setting-kan uu kooban yahay laakiin setting-kan oo la sii balaariyay ayaa control panel leedahay okay waxa ugu horeeya system-ka qaybta ugu horeysa eegi doono waa system marka ku dulfano waxaan arki karnaa waxyaabaha uu weydiinayo late night baan ku xidhnay sagaalka wixii ka dambeeyay inuu late night noqdo oo iftiinka naga xidho screen-ku waa inuu 100% soo dhigaa size rotation-ku waa inta landscape way kuwa bedeli kartaa waa portal baa ka dhigan kartaa
wow noode dhinac inooga jeesanayaa inaan dhinac u jeesano ma rabno ka noqonayna waa display-ga la yidhahdaa qaybtan waa zoom-ka zoom-ka intaad ka dhigaysaa 90% mikrofoonada kuugu xidhan sound testiga isticmaal karto xaggan waa notificationada uu kuu soo dhigayo ayaad xaggan inaad apps-ka notificationska halkaa uu kuu soo dhigo inaad iska xidhi karto inaad ogolaanaysid haddaad ogolaatid optionska baadina kusii weydiinayaa screen lock notificationka muu soo dhigaa remaining-ka call iska muu soo dhigayaa notification in sound background dhuq oo kale u yara idhahdaa uu soo dhigi karo applicationada halkan baad kasii dooran kartaa applicationkaas khaaska baad ka xidhi kartaa inuu notification kusoo diro customer skype kalimka waxaan arkaynay notification xagga uu kusoo dhigay sidoo kale applicationka mailka inuu notification xagga soo dhigan kan kuwaas oo kalena waad ka xidhi kartaa applicationka aan doonayn inuu halkaa kuu soo dhigo notificationka uu notification kuu soo dirin aad doonayna waad ka xidhi kartaa aan kasii soconno focus assistance-ku waa marka aad doonaysid wax kale oo ku mashquulin ayaa la furtaa saacado gooniina waad ku xidhan kartaa waqtiga 10 ilaa intaas waa waqti shaqada oran kartaa waxa kale oo dhan uu ka xidhayaa applicationska aad dooratid mooye kuwa kale oo dhan halkan kasii hooseysa waa power-ka iyo sleep-ka shaashada computer-kaagu goorma ayay dantaa intee leeg bay ku dantaa markaad isticmaal weydo ee joojisid isticmaalka joojisid 5 minute kadib shaashadu way damaysaa oo way automatic way isku baqtinaysaa sleep bay galaysaa markay dab ku jirtona markay battery-ga leedahay 5 minute markay dab ku jirtana 10 minute computer-ku dabka wuxuu dhisay xariga computer sidoo kale computer-ka dhamaantii 15 minute markay isticmaal weydo sleep buu galayaa isaga automatically isku yara daminayo sleep isku gelinaya markuu dabka ku jirana wuxuu isku daminayaa 30 minute waa bedeli kartaa saacadan iyo time-kan sidoo kale xaggan additional power setting baad oran kartaa additional power setting-ku wuxuu geenayaa control panel-kii aan sheegaynay setting-ka ballaaran aan lahayd iyo details-ka tusaale ahaan oo kale waxaad oran kartaa marka computer-ka la isku laabo iyo power button-ka marka la qabto maxay sameeyaan power button-ka marka la qabto sleep-kii sameeyaan computer-kii kama dambeeyo dadka qaar computer-ka automatically waxa ku xiran shut down inuu noqdo in case aad si yaroo fudud u taabatid adoo computer-ka ku shaqeynaya uu ka damin karaa marka aan sleep aan iska xidhay computer-ka way isticmaalaysaa sidoo kale waxaan oran karaa haddii la taabtay inay waxba qabanin do nothing hadaan imka saab ku save gareeyo power button-ka game-kan oo taabanaya waxba iska bedelayaan